Video waxaan kuula wadaagi doonaa waxyaabaha sababa inaad noqotid qof mar walbo maskax ahaan u liita markii la joogo dhanka tradingka. Intiina badan waa maqasheen wax la yiraahdo psychological error oo ah in qofka gudaha khalad ka imaada sababa in mar walba uu guuldareysta. Ma ahan in tradingka mise psychology strategy nidaam sida u shaqeyso uusan fahansanayn dhalinta hadda Soomaalida mise qof walbo trading ku imaanayo wuu og yahay systemka istaraatiijiyadaha sida u shaqeeyaan. Oral caan ah jirto dhahday haddii xataa aad ku dhijino Wall Street New York oo ah istaraatiijiyada aan ku dhijino systemka ku shaqeyno oo aan ku sameyno millions of dollars sanadkii faa'iideysan karin nidaamka anaga marka lacagta aan ku sameyno micnaheedana aysan ahayn in anaga wax ka qarsanayno waa ina u bandhignaa si ay ku fahmi lahayn lacagtaas sameyn si lamid ay ku sameeyaan kuna sheegay ma ahan ciladaha tradingka sababta technicalka kaliya ma ahan tradingka lagu sheegayo technical waxyaabo ka weyn oo ka madax banaan la rabo inaad soo hagaajisid ayaa mar walba ay muhiim tahay. Hadda waxaa kula wadaagi doonaa qodobadaas qodobo ka mid ah iyo sida ku xalin lahayd anigana kulay marka tradingka soo galay in badan oo ila mid ahba waa ay soo mareen qodobadan. Qodobka ugu horeeya wax loo yaqaano FOMO oo ah English waxay ku dhahan fear of missing out of trade macnaha inaad ka baqdid trade inuu ka tago sidii adigoo ka fikiraayo inuu maanta howlihii ku yaalay dhan inaad sameyn weysid oo macnaha qof walba inuu ka fikirtid mar walba kugu soo laabat ay tahay tradekan ama iga taga ama heli waaya fursadaan sugayay muddo dheer mise maalinkii dhan aad tradingka technical ka kor fadhisay ama tradeka fursadda ay heli waaya adigoo sababo darteed kugu soo dhacay aa u qiyaasaysid maybe laga yaabo trade hore in tradedidaadii ay saa kaaga tageen mar walban kugu abuurto maskaxiyan ahaan cabsi inaad tradeka misgaraysid mise uu ka tago marka arrintaa waa arrin aad iyo aad halisteeda u wadata oo intiina badan xataa sababta trade aan imaanin intrigiin adoo og shuruudihii badnaa backtestingkaad ahayd tradeyada qodobo shuruudo uu buuxiyaa jiro laakiin aad leedahay un si uusan tradekan iga tagin hadna ee tradeka buy u galaa mise sell u galaa si fursadda aysan ii dhaafin markaa buy u gashidna positionka ku sugaysay early buy mise early sell ay dhahaan oo inaa degdegsi ku gashid tradekii oo ah tradeka shuruudii wax dhammaan yihiin aad gashid keli aadoo rajaynayo tradeka inuusan kaa tagin marka damban sababta risk reward ratio-gaagii aad ku xisaabtamaysay inuu meesha ka baxo so waxyaabaha ugu adag oo qofka la raban inuu iska ilaaliyo FOMO numberka labaad oo mar walba raban inaa intiina badan qof markuu bilaabay uu soo maro waxaa waaye wax loo yaqaano inaad ka aargoosatid trade macnaha tusaale ahaan tradean qaatay tradekii shuruudda systemkeedu ii waafaqay tradekii khasaaraha ugu talagalo ii qaaday is enough meesha inaa kaga haray ahayd laakiin inteena badan markaa tradingka ku cusubnaa waxaan sameynaa lacagtaa loos garaynay oo ahayd maybe inaa maanta waxaa ogolaaday inaa khasaaro 2% of my account 2% saddex mas 2% ayaan ogolaaday inaa account kaa khasaariyo laakiin markaa khasaaray kadib waxaa igu soo dhacaysa okay lacagtaa kama maarmi kara waa inaa haddan dib u galaa tradekii si markaa lacagtii ugu soo celiyo marka waxay kugu noqonaysaa kii khasaaradii maahna mid kalaa kugu darsamaayo mid kala kugu darsamay saddex mid kala afar adoo xarkaas account-kii dhan drawdown-kii maanta ugu talagashay khasaarihii ugu talagashay mid saddex jibaarka afar jibaarkii ku jiro markaasay kugu abuuraysaa fikir dheeraad ah markaas waxay abuuri kartaa xaalad oo behavior tendency aadan adiga u ogolaanin aadan ugu talagalin inay kugu soo waaqacdo then aad dhahayd okay tradekan ma aha wax markaa aad leedahay si fudud u control kartid maskaxdaas fikirkaas waxay kuu diraysaa signal ah inaa mar walba tradekii lacagii aad soo celisid arrintan waxaa ku xalin doontid qodobka video gadaalan kaaga sheegi doonaa iyo waxyaabaha aniga aan soo maray qodobka saddexaad oo as leeyahay waa ayadana video badan waa ku sheegay waa cabsida markii psychological laga hadlaayo anaga jismigeena wuxuu u dhisan yahay qaab wuxuu u diyaarsan yahay wax loo yaqaano security rabo xasilooni rabo deganaansho rabo laakiin tradingka wax keli lagu trade gareeyo oo lacag laga sameeyo waa waxaan la hubin haddaan ku yidhahdo maanta waxaan la hubin ma ku shaqaynaysaa intiina badan probability no sababto waxaa leedahay maxaan ka faa'iidaya waxaas hadday dhicwaansaan hadday dhacda ka waran adigoo u yeelayo marka aragti kale oo ah inaa waxaan macquul ahayn laakiin trading markii la joogo suuqiyan stock market everywhere ereyga tradingkana macnaha uu baaxad weeyahay waxay noqonaysaa marka inuu qofka ka fikiro wax la hubo inuu helo marka cabsidaas ayaa keenaysa qofkii marka inuu trade badan ka baaqdo asigiyo qof u malaysid in roob ku da'ay meel taagan oo dhinacan u dhaqaaqi karin
mase qof xareero dab la geliyey markuu inta u dhaqaas yiraahdo inuu dabkaa ku gubto ka baqayo sababtoo mar walbana qofkii waxaa ku xareeraysan inuu khasaaro ka baqaa mar walba waxaa ku xareeraysan hadduu tradekan qaato waan khasaaraya lacagteedii maanta way khasaaraysaa many time markuu tradeka xataa u furo xataa keliya waxaa dhibaysa gaduudka yaroo minuska keliya wuxuu arkayaa inuu maanta khasaaradii ugu weyneed uu tradingka gali rabo marka cabsida waa waxa sababa maskaxdaada inaad tradingka ayadana psychology ahaan kuu samayso in badanna soo laalaabashadeeda ku dhibta si aad ku xalin lahayd okay midda kale xigto ayadan afaraad oo la rabo inaad ka maarantid oo iska ilaaliso waxaa loo yaqaan drawdown anaga waxyaaba stresska koos gareeyo bini aadan ahaan ma ogolin inaan khasaarno maskaxdeena ma ogolaanayso inaan khasaarno mas wax naga halaabaan noloshana haddii aadan waxba ogoleen inaad gubto khasaartid mas inaad wax risk aadan qaadanin waxaa oppositekeeda ah inaadan fursadii la rabay aadan gaaraynin sababtoo ah opportunityas fursadaha waxay ku xareeraysan tahay mar walba inaad qaadid riska khasaare inaad ogolaato waa inaad khasaaraha ma aha keliya lacag ah waa inaad ogolaato inaad waqtigaada meel badan muddo badan aad gelisaa si waxaas waxa ogeshid intiina badan hadda jaamacadaha markii la dhameeyo waxaa lagu shaqeeya volunteer wax loo yaqaan oo qof in la leeyahay fresh graduation hataa waqti geli meeshan si aad experience u heshid laakiin anaga ma ogolin ma rabno inaa waqtiga uu naga lumo laakiin kadib waxaa ka dambeeya fursado anaga nolosheena bedeli karo marka training markii la joogana khasaaraha wax laga baqa ma waa khasaaraha inaa ogolaatid si fursadaas aa heshid haddaa dhahdid sidii saliidio kale koraan saarnaanaya ma ogoli inaa wax bixiyo then waxaan rabaa inaa wax helo maybe comfort zonekaaga subaxii ma rabtid inaa kacdid xilli fiican si aa u shaqaysid waxaa rabtaa adigoo noloshaadii wax walbo dadaal aadan gelin ku dhamaystirin at the same time inaa heshid saa u noolaan lahayd noloshaa ku riyoonaysa inaa heshid marka bani aadan ahaana saa u dhisannahay waxaa ogon lahay mar walbo inaa ahaano xareero zone aniga ku dareemayn xasilooni laakiin tradingka kuma ogolaanayo inaa xasiloonida ku jirtid waa waxyaabaha marka qofka kale oo arkaysid uu suuq kaga hormaraya ma nolol ahaan uga hormaraya xataa inuusan marno ogolaanayn inuu ku noolaado noloshii uu shalay ku noolaa uu u gudbo nolol maanta uusan ku dareemaynin kalsooni mase xasilooni keliya si uu u helo wuxuu sameynaya wax ka duwan saa u heshid waxaa sameynaysay mise waxaa heli jirtay nolosha ku noolahay si ka duwan haddaarti inaa u noolaatid beri lagu dhaho okay hebel wuu isbedela waa inaad ka tagtaa wixii maanta aa ku nooleed oo ah ka tanaasusha marka tradingkana kuma ogolaanayo inaa xasilooni dareentid marka waa inaad qodobkaa fahantaa inaad riska qaadataa marka anaga sideenana cabsida waxyaabaha nagu hareeraysa mar walba waxaa waaye riskaas ayaan ka baqnaa qofaa arkaysa wuxuu ku leeyahay ani waxa inaan rabaan sameeya laakiin isbedelkii marab inuu sameeyo so qodobkaa waa qodob aad iyo aad kuula joogteen doona intaa ku jirta training laakiin ma kaa baabi'i doonto dadaa ku dhihi doona cabsida iska saar mee cabsida ma baxdo cabsida waxa u baahannahay waxa inaad dareeno laakiin waa inaan xakameynaa aan ku xakameynaa level anaga aa guusheena ka hor imaanaynin level masheer anaga ay guusheena ka hor imaanaynin cabsi zaa'id ahna lama rabo cabsi markaa adiga ka celinayso wax walbo qaban laheedna lama rabo taasi waa tradingka marka sidoo kale qodobka shanaad waa overconfidence waa ina kalso hadda fiican ka hadlaynay state kale waxaa jiro ay dadka tagaan wax loo yaqaano isku kalsooni dheeraad inay siyaan tradingka oo marka dambena sababta inay niid ahaan u burburaan waxaa nin hadda ka sheekeeyay oo trading caan ah oo waxaa jiro dad 3 sano 4 sano 5 sano soo dhisay capitalkooda lacagahooda soo dhisay ku khasaariya muddo yar kooban hal maalin ah wuxuu khasaaraya intaas waxyaabaha history laga qoray trading ku saabsan waxaa waaye inuu qofka muddo yar uu ku noqdo qof aad iyo aad broke ku noqdo xataa dad qaar psychology ahaan ay tradingka dhan ka nijabaan ay xataa mentally ahaan ay u sabamayso caafimaadkooda sababta waxaa arkaysa qofkii losing wuxuu galaa streak oo hal mar ah hadda badna waxay caan u tahay dhanka qamaarka markii la yiraahdo ay khasaaraas u badan tahay laakiin marka overconfidence laga hadlaayo wuxuu ku geen karaa heer account aad korinaysay muddo isbuuc muddo 2 bil muddo sanad muddo intaasoo sano capital aad korinaysaa laga yaabo inuu hal mar drawdownkaadii waxaa shaqaynaysay dhan hal mar uu dhulka la aado waxaa sababi kara marka waxaa sababi kara inaa kalsooni dheer aasis trading maybe waxaa ku tiragaranaysay lot size oo adiga account-ka mar walba koriya mar walba kugu dara percentage mar walba kor ku wada laakiin maanta waxaa go'aanstay maalmaha ka mid ah inaa 100,000 oo hal mar aad samaysid oo aad dhahdid okay maanta soomaha waxaa haysta account-kay 50,000 waa inaa ka dhigaa intaan dhan waa soo samaynayay trade-ida kusoo samaynaya waa kan journalkayga waa kan waxba igama khaldano trade-kan waa inaa ku guuleysanaya then awaara ka awood badan inaa lacagtii pressure aa saar then aa aragtid waagii hore markaa khasaaraysay 2% 3% hal mar 80% aa khasaartay dhulka imad adoo rajaynayana inaa gaarsiisid hal mar inaa korka aad marka tradingka sidaa ugu fikirtid faa'iidada
mid lamid ah waa inaad khasaare uga fikirtid marka overconfidence-gana mees ayay halis ku tahay midda kale oo ayadana lamid ah qodobka 6aad qodobka 7aad ayadana waxaa lamid ah wax loo yaqaan over risking trading waxyaabaha lagu joogo oo qofkan muddo hebel bishan wuxuu sameeyey profit oo high income profit kan uu sameeyey markii lagu leeyahay micnaheedu ma aha inuu adiga ka dadaal badan yahay micnaheedu waxaad risk managementigiisa iyo wuxuu kugu dhamaa keliya lacagtiisa siduu u xakameeyo inteena badanna mar badanna waa sheegaa waa in aan ka fikirnaa xakameynta lacagtaa haysana kahor intaanan ka fikirin lacagtaa sameyn lahayn riskiga over markuu noqdo waxaa loo baahan yahay proper risk management waxaa jirto risk okay then waxaa loo kala qaada over iyo proper ereyada badnaa englishka markaa isticmaalayo waxay ii fududaynayaan inaan fahansiiyo guud ahaan ereyada meeshay ku habboon yihiin khasaaro oo waxaa loo baahan yahay adiga aad ka maarmi kartid khasaare okay maanta tusaale qof shaqaalaa tahay xarunaa ka shaqeysaa bisha mishar kuu soo dhaca waxaa qaadataa tusaale ahaan wax familka maareyn karo khasaaraha tradingka marka haddii aad dhahdid ka waran lacag ayaan suuqi gelinaya waxaana gelin doonaa lacagtii aad familki markaa nolol maalmeedkii aad ku maareynaya trading geenaya marka taasaa loo yaqaanaa over riskiga qaadanaysid waa riska aadan ka maarmin sababtoo haddii la waayo lacagtaas noloshaada waxaa caqabad weyn ku dhalanayso in tradingka ahayn cilada ugu weyn adiga ay tahay riskiga qaadatay inuu ahaa riski laga maarmay khasaare oo laga bahana laakiin haddaa samaysid proper risk management oo ah mashaarkaa qaadatay qaybna ugu talagashaa waxbarashadii tradingka qaybna ugu talagashaa familkii wixii aad kala isku maaraysa saasaa la yidhaha risk managementiga then over riskin hadday ku gasho tradingka waa waxyaabaha ayadan aad iyo aad aadan halista u ah la raban inaad ka fogaato marka maxaa ku xalin karaa su-aasha ah inaad kaga jawaabo qodobada aad soo sheegay wax kale aad ku xalin kartid aana mar walbana aan kuu sheegi doono waxay tahay qodobada aad ku soo sheegay markaas sharxayay waxa kale ku xalin karta wax loo yaqaano journal and tracking oo ah inaad qortid maalinkaas waxaa qaban lahayd maalinka tradingka waa inaad qabatid sababta tradingka u qaatay waa maxay tradeada qaadanaysid maalinle sessionka number session hadduu yahay then New York haddaad trade garanaysid every session labada session mas hal session haddaad trade garanaysid maqrib walbo waa inaad journalkaaga xirta aad dhahda okay trade kanaa qaatay maxaa ku qaatay kanaa xiray kan maxaa fudeed ii sameeyey maxaa sababtaa ku qaadanaya maxay tahay ma u baahana inaad tradekan ka baaqdo si lacagtii u save garay ma u baahana tradekan ka baqaaya miyahay mise trade shuruudeeda waafaqay waay marka journalkaasa kuu fududeyn karo trackingkana waxaa waaye muddo walba isbuuc walba inaad samaysid journaaladaada khaladka gaababkaa samaynaysid iyo kusoo dhexgalaya mushkiladaadkaas inaad ku dhex socdid macnaha dadkii inteena badan anaga tradingka waxaa usoo galnaa kaliya inaa lacag samayn laakiin trading waa business waa goob ganacsi tusaale ahaan maanta dukaanaa leedahay dukaanka haddaadan shaqaalihiisa iyo wixii mishaaraad ku baxaayo iyo dhaqaalaha soo galaayo bili haddaadan xisaabi karin dee ma ogaan kartid faa'iidada markaa meeshaas kugu jirto khasaaraha kugu jirto unless waxaa tahay qof u dhexeeya kor mas hoos laakiin wax walba waxaa kaga gudbi kartaa tracking inaa khaladaadkaada dabageshid khaladaadkaada aa baartid noloshaada iyo tradingka saa u rabtay wax kale ku maarin karto waxay tahay banaanka marka la aado ma tahay qof discipline ah qof dulqaad leh kaliya waxaa guulshaada iyo aasaaskaaga kusoo gabagabayn kartaa inaad siisid waqti si aad ku dhistid kalsooni dheeraad ah tradingkan beri aad guul uga gaartid marka qodobadan iyo qodobo xigo ka badan waan soo gudbin doonaa haddaad nala socotid youtube-keena waad ku mahadsan tahay haddaad nagu cusub tahayna subscribe intii markaa u baahan qodobo intaan ka baxsan inaan kasoo hadlo waxaa nooga reebi kartaa qaybta comment sidoo kale live tradingkeena weli waa open waa isbuuc kale iyo maalmo kale fursado kale sidan unbaa usoo bandhigi doonaa then aydan linkiga exam hoos ayuu yaalaa haddii marka account aa ku leedahay discord community-ga noogu soo sheegaray si aa uga mid noqotid dhalinta maalin walba nala taragaraysa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu